xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddiga farsamada iyo habraaca doorashada maamulka Galmudug iyadoo dhinaca kale madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu war ka soo saaray arintaasi Yuunus Duraan Cali ayaa ka waramaya. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay dikreeta ay ku magacaabayso guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay 13 xubnood oo ka kala socda beelaha degan deegaanada Galmudug. guddigan ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa wuxuu xil saaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyay xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo golaha wakiilada maamulkaas, xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala odayaasha dhaqanka, ansixinta liiska xaqiijinta soo xulista xildhibaanada cusub ee Galmudug. Isaaq Maxamed Maxamuud oo ah kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa TV-ga dawladda ka akhriyay magacyada xubnahan ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno dhisidda guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka. guddigu wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood oo ka kala socda beelaha degan Galmudug. guddigu waxay iska dhex dooranayaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen. hawsha guddigu waxay noqonaysaa mas'uuliyad wadareed. magacyada xubnaha guddiga: 1 Maxamed Cumar Warsame Afrax, 2 Cabdulqaadir Nuur Araale, 3 Axmed Maxamed Caafi, 4 Cabdirasaaq Kaahiye Yuusuf, 5 Cumar Maxamuud Cabdi, 6 Xuseen Cabdulle Xasan, 7 Maxamed Daahir Faarax. guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu u xil saaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyay xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada, maareynta iyo xalinta khilaafaadka ka dhexdhasha odayaasha dhaqanka. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo dhawaan sheegay inuu wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya kala noqday wakiilashadii arrimihii maamulkaasi sida doorashada iyo dib u heshiisiinta, waxa uu soo saaray warqad uu ku taageerayo xubnahan ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. waxa uu sheegay Xaaf in ay ka qayb qaateen magacaabista xubnahan ayna wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya kala shaqeyn doonaan dhamaystirka Galmudug midaysan oo loo dhan yahay. Xaaf ayaa warqad uu soo saaray faray guddigan inay howlahooda u gutaan si cadaalad ah hufnaan ay ku jirto. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu furo kalfadhiga 6aad ee baarlamaanka Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa qaada dhigaya. maanta oo Arbacaha ayaa lagu wadaa inuu furmo kala fadhiga 6aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib 2 bil oo fasax ah oo ay xildhibaanada ku maqnaayeen. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta furo kala fadhiga 6aad ee golaha shacabka iyo aqalka sare, waxaana la filayaa inuu madaxweynaha u jeediyo khudbad uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka. kala fadhiga 6aad ayaa maanta ka furmaya xarunta booliska ee General Kaahiye, waxaana marti ku ah gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xamuud oo kala fadhiga lagu casuumay. kala fadhigii 5aad iyo kii 4aad ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa si gaargaar ah u kala dhacay, iyada oo xilligaas guddoonka labada aqal uu ka dhaxeeyay khilaaf. hase yeeshee dhawaan ayay labada dhinac xal ka gaareen khilaafkooda, taas oo hadda suurtagelinaysa in labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta si isku mid ah uu ugu furo madaxweynaha Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa khudbadiisa oo maanta ka horjeedin doono xildhibaanada laga sugayaa waxa uu ka dhihi doono arrimaha maamulka Jubbaland oo ah siyaasad ahaan xilligan meesha ugu adag siyaasadda dowladda iyo si guud khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. kala fadhigan 6aad ee maanta u furmaya baarlamaanka ayaa noqon doona mid xildhibaanada ay wajahayaan shaqooyin adag oo u baahan in wax laga qabto. sida uu ku soo waramayo Cumar Maxamed Soomane, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxay kala hadleen khilaafka dowladda dhexe iyo maamulkiisa. wasiiradan ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa socdaalkan oo aan horay loo sii shaacin waxa ay shalay ku tageen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari, waxaana halkaasi kulamo saacado badan qaatay ay kula yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada la kulmay madaxweyne Dani ayaa dhammaantood waxa ay ka mid yihiin wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Puntland, waxaana xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya ee tagay Boosaaso ka mid ah Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya,
wasiirka qorsheynta Jamaal Xasan Maxamed, wasiirka kalluumaysiga Cabdulaahi Bidhaan Warsame iyo xubno kale oo xukuumadda Soomaaliya ka mid ah. Sida ay warbaahinta u xaqiijinayaan ila lagu kalsoon yahay, wafdiga ayaa madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani waxa ay u soo bandhigeen in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya xukuumadda federaalka ah iyo Puntland si meesha looga saaro madmadowga iyo habacsanaanta ka dhex muuqata Puntland iyo dowladda federaalka. sidoo kale waxa ay ka dalbadeen in Puntland aysan ka qaybgelin munaasabada lagu caleemo saarayo madaxweynaha dib loo soo doortay ee Axmed Maxamed Islaan Madoobe oo la filayo in toddobaadkan caleemo saarkiisa lagu qabto magaalada Kismaayo. madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ila ka tirsan xafiiskiisa waxay xaqiijiyeen in wafdiga uu u sheegay in Puntland mar walba ay diyaar u tahay in wada hadal lagu xaliyo khilaafka federaalka kala dhaxeeya haddii si dhab ah looga wada hadlo dhammaan arrimaha ay ku murunsan yihiin Puntland iyo dowladda federaalka. Dani waxa uu ka gaabsaday in gabi ahaanba uu diiday dalabkii ay hordhigeen xukuumadda Soomaaliya xubnaha matalaya ee gaaray magaalada Boosaaso, iyadoo dalabka intiisa badanna uu ku saleeyay in Puntland aysan ka qaybgelin caleemo saarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. waxaana uu si cad u sheegay madaxweyne Dani in Puntland aysan cidna fasax uga weydiisan doonin ka qaybgalka caleemo saarka Axmed Madoobe. kulanka labada dhinac ayaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday, waxaana la filayaa in wasiirada federaalka ay maanta dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho. sida ay sheegayaan dadka deegaanka, ciidamada amniga maamulka Jubbaland ayaa xalay ilaa iyo saakay baaritaano qorsheysan waxa ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Farjana, iyadoo sidoo kale isgoyska Kalkaalna ay ciidamadu gawaarida si adag ugu baarayeen. dad goobjoogayaal ayaa KNN sidaasi ugu warramay. baaritaanada ciidamada amniga ay sameynayaan ayaa ahayd mid lagu sugayo amniga Kismaayo, sida mas'uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ay Radio Kulmiye u xaqiijiyeen. magaalada Kismaayo waxaa maalmahan lagu wadaa in ay martigeliso wafuud ka qayb galaysa caleemo saarka madaxweyne Axmed Madoobe, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare. hay-adda saadaasha hawada Kenya ayaa sheegtay in 80% dad ku nool gobolka waqooyi bari Kenya roobkii da'ay ay ku waayeen ugu yaraan 1,000 neef, sida warkan Nairobi uu kaga soo diray Maslax Abuukar Xaaji. deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay ka da'ayeen roobab aad u xoogan, iyadoona roobabkaasi la soo sheegayo in ay sababeen khasaare u badan mid hantiyadeed. waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa waxa ay xaqiijisay in 80% deegaanada ismaamulka Mandera ay ka da'een roobabkaasi, hase ahaatee ugu yaraan 1,000 neef ay dileen roobabka, halka sidoo kalena ay qaadeen dhul beereedyo ay waxyaabo kala duwan oo dalagyo ah ku beerteen dadka deegaanka. iyadoona sidoo kale waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya digniin ka soo saartay dadka degan agagaarka webiga halkaasi mara, oo ay sheegtay in ay halis ku yihiin in fatahaado ay la kulmaan isla markaana ay isaga guuraan. dadka ismaamulka Mandera oo u badan dad xoolo dhaqata ayaa sidoo kale waxa ay isaga barakacayaan dhulalka godka ah oo ay ka baqdin qabaan in ay fatahaado saameyn ku yeeshaan. mas-uuliyiinta ismaamulka Mandera ayaa loogu baaqay inay ku dadaalaan sidii dadkan ay uga faa'iideyn lahaayeen biyaha roobka oo loo keedin lahaa si xilliyada abaarta ay dadka ugu baxsadaan biyaha. waxaana socda dadaalo kala duwan oo la doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo dadka dhibaatada dhaqaale roobabkan ay ku sababeen. inta badan deegaanada gobolka waqooyi bari Kenya muddooyinkan waxaa laga soo sheegayay abaaro xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada, iyadoona roobabkan ay ku soo aadeen xilli aad loogu baahi qabay. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. mahadsanid Maslax. halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Mareykanka ayaa sheegay inuu xayiraad dalku gal ah ku soo rogay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Shiinaha, kuwaasi oo ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin xadgudubyo loo geysta muslimiinta Shiinaha.
go-aankan ayaa waxa uu imanayaa kadib markii uu Mareykanka Isniintii 28 shirkadood oo Shiinaha laga leeyahay uu ku daray liiska madow. Waxaa shirkadahaasi lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen dhibka lagu hayo gobolka Xinjiang. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Meg Pompeo ayaa sheegay in dowladda Shiinaha ay adeegsatay olole caburin ah oo aad u sareeya. Shiinaha ayaa dhankiisa iska diiday eedeynta loo soo jeediyay. Ma aan markii ugu horeysay ee Shiinaha lagu eedeynayo xadgudubyada muslimiinta. Qaramada Midoobay ayaa hore Shiinaha ugu eedeysay inay u xiran yihiin ilaa 1 milyan oo qof. ugu dambeyntiina baarlamaanka Talyaaniga ayaa u codeeyay in la dhimo tirada mudanayaasha labada gole oo meesha laga saaray in ka badan 3 meelood meel. Aqalka hoose ayaa ansixiyay sharci dhigaya in tirada xildhibaanadiisa oo haatan 630 laga dhigo 400, halka aqalka sare mudanayaashiisuna haatan ay 315 iyana laga dhigaya 200. Isbedelkan ayaa ah mid uu horey u ballan qaaday xisbiga ugu weyn isbahaysiga ay ka kooban tahay xukuumadda ee 5 Star Movement la yiraahdo. Tira dhimistan ayaa looga gol leeyahay in meesha laga saaro 100 milyan oo euro oo ay mushaar iyo qarash ahaan u qaataan xildhibaanada. Ha yeeshee dadka dhaliilsan tallaabadan ayaa sheegaya in sharcigan uu weeqi doono dimuqraadiyadda Talyaaniga isla markaana uu sare u qaadi doono awoodda kooxaha danleyda siyaasadda. Waxaa suuragal ah in aftida weyn loo qaado sharcigan maadaama uu wax ka bedelaya dastuurka dalka Talyaaniga.